gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucid ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladaha gobolada Awdal iyo Saaxil. Gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe wuxuu soo hadal qaaday hadal in badan siyaabo kala duwan loo turjumay oo hore uga soo yeedhay kaasoo kaga hadlayay xaaladda gobolka Awdal isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxa kala jecelahay inaan ka hadlo dhalinyarada arkay reer Booramo aniga iga cabanaysa waxa weey hortaanu in badan baan ka hadlay in dalkan lagu wado cadaalad iyo fair lagu wado marka haddaan inoo saaxiib waa qaldantiin dhalinyarta waxa joojiya wali waxaan jecel dhalinyarta inay jawaabtaan isku nimaadno dood baa inoo furan baa leeyahay marka waan saxay laano qofka ay jecel qofka aad kargacal ka qabtid ka naxisid baa la saxa kii kale wada aamusiya saabku idin garaacaya marka waan saxay hadda ilaaho Soomaaliya waxa baahan cadaalad buu baahantay waan ognahay wax maanta la sheeganaya wax badan baa jiro qaldan لكن عد قارو كما فوكس كاريستين شعب غير سومالي وهذا أركيو رير بورما وين دايق وفرنا أنا دايلق قريب قليا تبشدوا ده ومقارني مدحوينو إن كستو أهد إنه مركي أودياشي مادين ووحي وسام قيب سكو كليا وشيبه ويتاسي ساكتي هذا لو سمي gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe oo ka soo laabtay dalalka Itoobiya Djibouti oo shirarka ka qayb galay ayaa cambaareeyay talaabada xukuumadda madaxweyne Siiraanyo ay ku wareejisay kaydka ama shidaalka magaalada Berbera isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxaan tagay Addis axadda Addis ka baxay waxaan tagay Maqalla waxa way Tigray state regional state ka Tigray baan tagay halkaas oo museum laga furiyay magaalada Wukro leeyahay ayaa museum laga furiyay anama saaxiibna lahay ka furiyeen Jarmalay qoladii ma kala qayb galnay arintaasi dawladda dhowr jeer baan kala hadalnay oo niri arinta haama hala hakiyo maadaama shacbigu aad uga soo horjeedo waa xoolo ummadoodna bay ka dhaxeeyaan hadda la xumaynayo in dadku dhan ka wada hadalay waa laga hadlay meel kasta waa laga hadlay ilaa Boorama laga hadlay sidoo kale xubin ambassador hore u ahaan jiray imikana gudoomiyaha horumarinta ururka Afrika ee dalka Jarmalka ee Fayn ayaa ka hadlay safarku Somaliland ku yimi isagoo sheegay inay kala shaqeyn doonaan horumarka ganacsiyada gaarka loo leeyahay sanadka dambena ay rajeynayaan ay ka qaataan isku xidhka ganacsiga Somaliland iyo dalka Jarmalka xubintani oo arrimahan ka hadlaya ayaa isna yiri My name is Christian Narkons. I'm a former German ambassador. Today I represent the German African Business Association, Afrika Verein, and I'm happy to be here for the third time already, and I've seen other places of your beautiful country, Somaliland. This time I came upon invitation by the government of Somaliland because together with your government we, the Afrika Verein, we want to organize a German Somaliland business forum. Ismaan Ahmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.